بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا ونكسن كسو channelka wararka ugu dambeeyay ee sportska ciyaari xalay toole ciyaaray kuwa caawa la filayo Europa League oo xalay dib loo ambab qaaday sidoo kale ciyaartii Barcelona ee waalideed sidoo kale Lille oo gool ka gaartay Europa League Lyon sidoo kale Villa Rangers oo la garaacay ilaa iyo waa arki doona caawa sidoo kale xalay toole Porto ayaa ciyaarta maxay ku adkaatay naadi kubadda cagta Al Hilal Saudi oo iyadana gool weyn soo hoyday caawa Al Nassr iyo naadi kubadda cagta Al Ittihad sidoo kale Bundesliga oo Bayern Munich ciyaari doonta Marseille oo ka soo adkaatay PSG oo caawa dib u ciyaarayso League 1ka maxaa laga yiri ciyaarihii xalay toole dhacay wacdarihii kulmadii isbuuca inaba caadi maan soo dhawaada channelka hadduu ku cusub yahay fadlan subscribe noo saar like dhisiin share garay waa ka mahad celinaa daawashada muuqaalkan William Saliba oo markaan qark u saaran inuu heshiis cusub u siixay naadi kubadda cagta Arsenal sidoo kale Rio xidig garabka weerarka ee naadi kubadda cagta Liverpool oo asiina qandaraas dheer u siixay naadi kubadda cagta Liverpool Garcia goolaya naadi kubadda cagta Barcelona oo qalad weyn ka galay ciyaartii xalay toole madaxweynaha La Liga Javier Tebas oo arin la yaab leh ka dhawaajiyay oo ku saabsan Lamine Yamal waa sidee xaalka Philip Barcelona suxuunta doosho waa ku soo dhawaada saaxiibayaal insha Allah wararkan wuxuu ku bilaabi doonaa maadaama dalka Soomaaliya aad joogno ciyaaraha ka socdo ku bilaabo doona ay hal iyo laba ka taaban doona insha Allah waxa galabta furmi doona garoonka istaadiga Muqdisho tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada loo casuumay ama degmooyinka loo casuumay ayaa bilaabo doona maanta taariikh gooni ah waaye insha Allah 26 bisha 9 2025 waxaa maanta dib u bilaabi doona tartan kubadda cagta degmooyinka ee gobolka Banaadir Kaaraan oo difaacayaasha ah iyo naadiga kubadda cagta Dharkeenley matalan ciyaartooyda ayaa galabta ku dheeli doona istaadiga Muqdisho saacada markay tahay 9 saac qadar 30 daqiiqo labada degmo ayaa la filayaa in dardaaran iyo digniino iyo bogaadinba la soo wada siiyay waxa arkay labada gadoomiye iyo ku xigeenadooda gadoomiyaha sportskooda macallimiintii oo shirar qaar qabtay u balan qaaday ciyaartooyda goosha koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee shabaq ilaashada xataa sanadkan waxba la isku siinayaa marka koox walbo ama degmo walbo waxay u soo baxday inay tartanka hanasho ilaa waxa ka hore inay kulamada adkaato waa kadib final iyadoona adkaaneen wax qaadi karto maraan marka waxa leeyahay waa la soo bogaadiyay sidoo kale marka Kaaraan iyo Dharkeenley maanta ayaa lagu furi doonaa maalinta beritoole waxaa wada ciyaari doona sidoo kale Howlwadaag iyo Xamar Jajab Engineer Yariso 9 saac ay dheeli doona ayaa leeyahay inaba caadi maalin sabtida sidoo kale sabti 27 bisha 2025 Yaaqshiid iyo Balcad ayaa ku dheeli doona istaadiga Muqdisho 8 saac markay tahay inaba caadi sidoo kale waxaa leeyahay isla sabti 27 bisha 2025 Daynil iyo Hilwa ayaa ciyaari doono kulan ka tirsan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada loo casuumay istaadiga Muqdisho ayayna ka dhici doontaa 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo ayaa leeyahay inaba caadi kadib axad ayaa la aadi doonaa marka axadan insha Allah waa neela soo socotiina kulmada la ciyaari doono degmadee joogtaa degmadee sataayeersa degmadee ku dhalatay commentii nagu wadaag natiijo nooce ay ka filaysaa kulanka maanta Dharkeenley iyo Kaaraan u dhaxeeyo waa laba degmo oo aad iyo aad marka dhanka sports kala dhaho Dharkeenley oo inta badan qaado naadiyaasha ugu cadcadna sanad walba loo tiriyo ee Kaaraan oo sanadkii u dambeeyay ku guuleysatay inaba caadi marka degmooyinka iyo waa badan yihiin inaba caadi Gubadley Hilwa wax badan wada jir Boondheere Abdicasiis Warshiq oo loo casuumay inaba caadi marka waa arki doonaa degmooyinkaas iyo waxa la imaadaan insha Allah guula wada rajeena dhamaantooda galabtana aada istaadiga Muqdisho ama ka daawo Asal Sports ama Azul Sports ama Star Sports meel walba ay yaalaan ciyaaraha dalka nasiib wacan ayaa leeyahay marka laga imaado ciyaaraha dalka insha Allah waxa gudagali doona kuwii xalay toole laga ciyaaray saaxada kubadda cagta Europa League waxa leeyahay waxa xalay toole ciyaaray ciyaarooyin badan jira laakiin waxa ugu cadcada oo uu kulula oo soo qaadan doona do ilaa raali ka noqdo
liil ayaa adkaatay 2 gool ayaa leeyahay inaba caadi maahan. goolal ay ka kala heleen xidigahooda Ikamende iyo Giroud ayaa leeyahay inaba caadi maahan. sidoo kale Aston Villa ayaa adkaatay gooli waxba. Bologna ayaana ka adkaatay. sidoo kale Lyon ayaa gooli waxba ku adkaatay. halka Rangers la garaacay ayaa leeyahay. sidoo kale Porto ayaa gooli waxba ku adkaatay inaba caadi maahan. marka Celta Vigona xalo waa laga adkaado Stuttgart oo Jarmal ka socota ayaa 2 gool dirtay inaba caadi maahan. sidoo kale waxaa jirta ciyaar u dhaxaysay Al Hilal oo Saudi Pro League ahaa 3 gool ayayna ku adkaatay inaba caadi maahan. Coppa Italia marka Genoa ayaa 3 gool Empoli ku garaacday halka Torino Pisa 1 gool waxba ku garaacday inaba caadi maahan. ciyaartii uu adkeed xalay waxay ahayd La Liga Osasuna iyo Elche ayaa bareejo galay halka naadiga kubadda cagta Barcelona ciyaar comeback ahead oo gool loogu hormaray ay 3 gool ku bedeleen. Garcia ay goosha koowaad ka heleen, Lewandowski oo goolka labaad dhaliyay iyo Araujo oo goolka saddexaad dhaliyay inaba caadi maahan. waxaa leeyahay marka waa ay soo wada bixeen Barcelona oo goolka markii loogu hormaro dadaal dheeraad ayaa la imaadeen. caawa waxaa leeyahay Bundesliga ayaa jiro, Bayern Munich ayaa dheeli doonto inaba caadi maahan 3 saac iyo bar caawa geeska Afrika. sidoo kale Girona iyo Espanyol ayaa furi doona mar kale horyaalka La Liga ee isbuuca inaba caadi maahan. sidoo kale Faransa waxaa ka dheeli doona Marseille ayaa mar kale ciyaari doonta kulankeeda ugu dambeeyayna xasuusnaawo PSG ay gooli wax soo kala direen. Saudi Pro League waxaa ka jira kulan aad iyo aad u weyn, waxaa dheeli doona Itixaad oo soo dhaweey doonta dhigeeda Al Nassr ayaa leeyahay inaba caadi maahan. Turkiya Galatasaray ayaa ka ciyaari doonta ciyaarihii la filaya waaye kuwaas kuwa la dheelay waxyaabihii laga qoray inaba caadi maahan. xalay toole waxaa dhacday dhacdooyin la yaab leh. aan ku hormarna naadi kubadda cagta Barcelona ayaa gool lagu hormaray qaybtii hore ciyaarta. wax walba waxay noqotay yaab iyo amakaag, laakiin Barcelona sanadkan waxay taagan tahay kama haray Real Madrid October noo balan dhibcaan ana ka reebo doona. marka gool ayaa lagu hormaray kadib 56 daqiiqo waxaa Eric Garcia goolka bareejaha keenay. 70 daqiiqana Roberto Lewandowski oo ciyaarta bedel ku soo galay ayaa goolka labaad keenay. sidoo kale Araujo ayaa keenay goolka saddexaad 88 daqiiqo. waxaa lagu soo calaameeyay ciyaarahaas ninkii ahaa Garcia goolaya kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qalad weyn ka galay ayaa leeyahay goolka koowaad ee laga dhaliyay inaba caadi maahan. kubadaasna qaladaad uu galay banaanka uu joogay ayaa banaanka laga soo cabeeyay waa uuna la yaabay naftirkiisa. sidoo kale Barcelona kulankeeda waxaa laga soo calaameeyay waxay garab istaag u muujiyeen xidiga dhaawaca 5 bil ugu maqnaa doona naadiga kubadda cagta Barcelona ee xulka qaranka Spain Gavi. waxaa leeyahay inaba caadi maahan garab istaag ay u muujiyeen soo kabash degdeg ku rajeynayna ayaa leeyihiin. sidoo kale ninkii Araujo ahaa naftirkiisa si qaas ayuu goosh saddexaad markuu dhaliyay oo farta ku fiiqay nambarkii 6 ee Barcelona. waana ku jeclaa waana ku sugi doonaa ayuu leeyahay inaba caadi maahan. waa arki doonaa waxyaabaha ka soo kordho dhaawacaas iyo taageerada ay u muujiyeen. waxaa leeyahay Frank de Jong ciyaarta bedel ku soo galay qaybta labaad ee xal ciyaartii Barcelona ee dheelaysay 45 daqiiqo oo bedel ku soo galay waxaa leeyahay hal caawin ayuu sameeyay. sidoo kale 65 baas uu sameeyay 64 ka mid ah waa ay dhameystirnaayeen 98.5% baas complete ayuu ahaa inaba caadi maahan. 2 jaanis ayuu abuuray qolkiiba 100 gambiskiis waa uu saxnaa ayaa leeyahay. sidoo kale karoosyada uu sameeyay 100% waa ay saxnaa inaba caadi maahan. banooniyaasha dheerna 2 ayuu sameeyay, labadaba top ay ahayn. 2 tackle oo guuleysta ayuu sameeyay inaba caadi maahan. sidoo kale waxyaabo badan uu sameeyay ninkan faawlo ma galo. marka ninkan Frank de Jong waxyaabihii laga sheegay waxba ka jiro daabac ciyaarihiisa inaba caadi maahan. waa halkan bi uu dheelay. sidoo kale de Jong hadii la soo hadal qaado waxaa meesha ka marnaa ninka qadka dhexe loola maaneeyo Bedri oo inaba caadi maahan. wuxuu sameeyay ayaa leeyahay jaanisada ugu badnaa ciyaarta oo la abuuro 4 jaanis ayuu abuuray. waxaa leeyahay 2 gambis oo ayuu sameeyay. sidoo kale baasas wuxuu sameeyay ugu badnaa ciyaarta oo 106 baas ah. baasaskiisana 95% waa ay saxnaan. waxaa leeyahay xidig saddexaad ee banooni taabtay inta la shoodan wuxuu sameeyay ayaa leeyahay 15 baas.
sidoo kale Bedri ayaa sameeyey 4 kubad oo dhuntay inuu dib u soo celiyo ayaa leeyahay inaba caadi ma marka ninkaas Bedri asigana waali waa leeyahay ninkii Hansi Flick ayaa gaaray 50 kulan oo guur ah oo asigoo macallin u ah naadiga kubadda cagta Barcelona asigoo hogaamiyay 67 kulan ayaa leeyahay marka Hansi Flick waa mucjiso caadi waxa leeyahay sidoo kale Marcus Rashford ayaa 2 gool dhaliyay 4 caabiye ka ah saddexdii kulan ugu dambeysay ee uu ciyaaray naadiga kubadda cagta Barcelona inaba caadi ma marka idaga inay taala Barcelona iyo Rashford habada ay maraan sidoo kale waxa leeyahay Spotify Camp Nou ayaa noqday number 1 garoonka ugu qaadista badan dunida asigoo qaadaya ayaa leeyahay 105 kun oo taageerayaal ayuu qaaday ayaa leeyahay sidoo kale Wembley ayaa booska labaad kusoo jiro 9.3 kun qaado sidoo kale Santiago Bernabeu oo Real Madrid ku ciyaarto 83 kun qaad ayuu yahay leeyahay Signal Iduna Park ayaa sidoo kale 81.3 kun qaado sidoo kale Stade de France ayaa leeyahay asigana 81.3 kun ayuu qaada ayaa leeyahay inaba caadi maan marka waa ka garoomada ugu waaweyn ee Yurub waaye sidoo kale waxaa leeyahay madaxweynaha La Liga Javier Tebas ayaa Lamine Yamal sababta uu u siiyay Ballon d'Or ku yiri Lamine Yamal waa uu qaadi lahaa laakiin wuxuu ku waayay da'da uu jira awgeed inaba caadi maan waana arki doona ayuu leeyahay markii uu gaaro 23 jir kadib ayuu qaadi doonaa oo 5 sano kadib ayuu qaadi doonaa Ballon d'Or Lamine Yamal عجائب وان marka waa arki doona Javier Tebas hadalkiisa iyo meesha ku dhamaado inaba caadi maan sidoo kale waxa leeyahay waxa cawaad muujiyay madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Joan Laporte oo yiri nimankii ahaa Iniesta iyo Ronaldinho waa weydiiyay miyuu ay ku guuleysan doonaa Ballon d'Or Lamine Yamal waxay dhaheen wax ka warhayna malahan mana naqaano marka waa isireen ayuu dhahay waa nimankii bixiyay abaalmarinta Ballon d'Or ee dumarka iyo ragga marka Iniesta dumarka bixiyay iyo sidoo kale Ronaldinho oo wiilashii inaba caadi maan sidoo kale ninkii Giroud ahaa wali wuxuu wadaa gool dhalin Yurub waliba Ligue 1ka asoo joogo Lille waxa leeyahay 33 jir 38 sano jir iyo 360 maalin wali waxa waaye waa uu joogaa waa una dhalinaya waa ninka ugu da'da weynaa oo dhaliyo gool asoo bedel ku imaaday tartanka UEFA Cup Europa League match marka Europa League ciyaar ka tirsan ninkii ugu da'da weynaa bedel ku imaaday gool dhaliyo waa leeyahay inaba caadi ma ninka marka da'diisa ma jooji karto sidoo kale John Henderson ayaa buuxsaday ayaa leeyahay 500 kulan oo naadi inaba caadi maahan marka kulamada ugu badnaan wuxuu ciyaaray naadiga kubadda cagta Liverpool 360 kulan halka 71 kulan oo u dheelay Sunderland halka naadiga ku soo xigtay Ajax ee 37 kulan oo u dheelay marka waa arki doona haddana Brentford ayuu joogaa oo 5 kulan ayuu dheelay naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa war farxad leh ugu soo yeeray dhankan iyo William Saliba asigoo ogolaaday qandaraas ilaa 2030 inuu u sii naadiga kubadda cagta Real Madrid laakiin Real Madrid ayaa gadaal taagan maya marka lacag badan hadda u balan qaadayaan waa arki doona sidoo kale waxa qandaraas cusub si xidiga da'yarka 18 jirka naadiga kubadda cagta Liverpool Rio ayaa qandaraas ilaa 2028 sax ayaa leeyahay laakiin in lagu dar ay u badan tahay waa da'yar hadda soo baxay marka waa arki doona Ballon d'Or ayaa hadal qaaday haatan waxa leeyahay ku guuleysan doono Ballon d'Or 2026 ama 2026 waxa ka xidigaas ayaana afkoora ku jiro Mbappe Vinicius Junior Haaland Mohamed Salah Bellingham Harry Kane Ousmane Dembele iyo Lamine Yamal miyay noqon doonaan xidiga tam u ah season-kooda Ousmane Dembele miyuu wada doonaa bandhigiisa waa arki doona waxa ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena legend kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Spain Sergio Busquets ayaa go'aan ku gaaray inuu soo gabagabeeyo oo ciyaarista ciyaaraha caalamiga Europe iyo midda Mareykanka hadda uu joogo sanadkan markuu dhamaado MLS-ka seasonkiisa dhamaado wuxuu leeyahay waa ka fadhiisan doonaa nasiib wacan aniga taga inaba caadi maan waxa bixi doona xidig mayal adag daafacasho adag baasas dhiibayo
da'da asoo jiro ayuu baasas u dhex bixinaya ciyaartii u dambeysay Inter Miami waa aragta baaska uu ku dhiibay sikimo qora asoon u fikirin u dhex bixiyo wadada u dhigay Lionel Messi asiyoo gool qurux badan dhaliyay Leo Andres Messi intaas ay ku soo gabagabeynayaan muuqaalka haddii aad nala joogto intaan muuqaalka laag noo saar hadduu ku cusub yahay channelkana subscribe ta naga loo dhaxalka kaliya kugu leenahay bye bye